dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin in si kadis ah ay isugu beegmaan dhacdooyinka aniguse maya kelmadan waxaa yiri qalbi shaki qaba oo ku saamoobi doona nacaybkii xargaha goostay ee ka dhacay guriga 3635 Beach Pine Crescent ama aan ugu magac darnay kawaankii argoosiga waa sheeko xiisaheeda gaarka ah wadata oo ay u dhameystiran yihiin baraare rajo jacayl isu bedelay nacayb argoosi iyo cadaawad sadarteed asxaabta qiimaha badan waxaan idin leeyahay ha degdegina si wacanna u saxda fadhiga tan kale waxaa 5,000 oo kaliya ay nooga harsan tahay 200,000 oo subscribers riyo aan muddo dheer lahayn run ahaantiina waxay igu fadhin doontaa qiimo aad u weyn haddii aad naga caawisaan gaaristeeda mahadsanidin kuna raaxaysta daawashada muuqaalka waa wax yar ka hor 9 habeenimo Abriil 16 2009 Bridget Harrison ayaa barxadda hore ee gurigeeda kaga soo degatay gaarigii ay wadatay waxayna xilligan dib ugu soo noqotay shir ay lahaayeen guddoonka sare ee iskuulka ay maamulaha sare qayb kaga tahay waxayna filanaysay in ninkeeda uu xilligan kaga horeeyo guriga balse marka ay horey u soo gashay gurigan oo dhan wuxuu ahaa mid mugdi ah shanqarta kaliya ee dhagaheeda ku soo dhacayna wuxuu ahaa dhawaaqa hoose ee telefishinka oo ka daarnaa qolka fadhiga ka oo miiska hor yaala ay saaran yihiin cunto haaf ah oo qofkii cunayay dhex kaga tagay waxay si sare ugu dhawaaqday magaciisa Bill si wax jawaab ah looma celin inta ay markiiba dabaqa sare ee guriga kortay ayay egtay qolkii jiifka bal haddii uu hurdo iyo haddii kale balse haddana Bill way ka weysay sariirta isla markiiba inta ay dib ugu soo noqotay qaybtii hoose ee guriga iyada oo magaciisa ku celcelinaysa ayay isu soo hor istaagtay albaabka suuliga oo xirnaa qataarna uu ku jiro waxay markiiba bilowday in ay la xarbiso albaabkii iyadoo ugu dambeyn fag kala siin doonta hal goorna uu ka soo horbixi doono ninkeeda oo sagxadii musqusha ku kala tuuran durbadiiba iyadoo argagax badan ku jiro ayuu ku booday telefoonkii si degdeg ahna u garaacday nambarka 911 My husband, I just came home from work and I found him collapsed on the bathroom floor. Hagii gargaarka ee telefoonka ka qabtay oo isku dayaya in uu dejiyo Bridget ayaa ka codsaday in ay hubiso xaaladiisa balse Bill wuxuu ahaa mid neef la'aan ah jirkiisa oo dhanna uu wada qaboobay muddo gudaheed kalkaaliyaashii gargaarka ay yimid guriga ayaa u xaqiijiyay Bridget wixii ay horeyba gunta hoose uga ogeyd balse ay diidaneed in ay nafteeda u sheegto ninkeedii Bill Harrison wuu dhintay kelmadaasi ayaa si xun u kala goyn doonta beerkeeda wuxuu ahaa nolosheeda oo dhan muddo 50 sano ahna ay laabtiisa ka bixin sida caadada ah waxa bartokoolka booliiska kamid ahaa in ay kiisaska dhimashooyinka kadiska ah ula dhaqmaan sida dil la geystay ama meel uu dil ka dhacay ilaa ay baaritaankooda uga soo baxdo mid taa ka duwan sadarteed qoladii baarista markiiba waxay bilaabeen baaritaankii meedkii Bill iyo guriga waxay wajigiisii iyo qaybta hoose ee cunihiisa ku arkeen calaamado gaduud iyo nabarka dhaawacyo yaryar oo khafiif ah sidoo kale waxa nabaro jug ka dhashay ay kaga yaaleen madaxa lafta dhexe ee feertiisa ee loo yaqaano sternumna sidoo kale waxa kaloo ag yaala misna uu watay daawooyin loo isticmaalo dhiikarka iyo kuwo kale oo xanuun baabiyaal ah laakiinse sida caadada u ahayd ma uusan xirnayn fargalkii guurkiisa iyo takiinadii uu wadan jiray ugu dambeynna baaritaan dheer kadib waxay qoladii baarista ku warbixiyeen in dhimashada Bill Harrison ay u muuqato mid dabiici ah oo ka dhalatay wadna xanuun dhuftay baaritaankii ay sameeyeenna aysan uga soo bixin wax shaki gelin kara oo tilmaamaya in la dilay dabcan waxay ahayd mid lama filaan ah in uu qof u dhinto qaabkan aan tafaasiil dheer laga bixin karin waxa ku dhacay balse haddana iyaga dhankooda dhimashooyinka noocan ah waxay ahaayeen kuwa dhaca oo aan curdan ahayn dhawacyadii ku yeelay maqaarka qoortiisana waxay ula ahayd in uu kaga imaaday takiinadii uu sida joogtada u xirnaan jiray lafaha ka jaban feertiisa iyo jugta ku tiilay madaxiisana waxay u xambaariyeen in ay uga yimaadeen istaagii uu ka dhacay goortii uu wadnaha joogsaday balse Bridget waxa marna nafteeda ka daadagi waayay xogtii ay booliiska la wadaageen iyo jawaabtii baaritaankooda sidee wadnaha 64 jir exercise sameeya oo jir dhisan macallin u ah koox sports ciyaarta caqabadna aan horay ugala kulmin wadnaha uu hal goor sabab la'aan isaga istaagay waxayna booliisku kula dooday in ay u aragto wax aan caado u ahayn in albaabka suuliga uu Bill isku soo xiro qofulna sii saarto maxaa keeni kara nin guriga keligii jooga in uu intaas oo dhan sameeyo waxay kaloo shaki aad u badan ka muujisay nalalka guriga oo dhan waxa ay u dansanaayeen marka la isku soo wada duubo waxay gunta hoose ee nafteeda ay ka yaqiinsaneed in dhimashada ninkeeda aysan ahayn mid kadis ah balse la dilay cidda ay uga shakisan tahayna ma ahayn qof ka dheer ee wuxuu ahaa shakhsi ka mid ah reerkeeda samida aanay filanaynin Bridget xilligan ayaa ahayd in dhimashada ninkeeda Bill Harrison aysan noqon doonin midda ugu dambaysa ee gurigan ka dhacda si aan u yara fahno halka ay waxaan oo dhan ka soo askumi doonaan aan dib kuugu celiyo bilowga
horaantii lixdameeyada ayay Bridget kula kulantay seegeeda Bill Harrison masraxa Stratford ee magaalada Ontario, Canada. xilligaa waxay ahayd jilaa ama actress balaaye ah aad u qurxoon, isteelkeeda iyo modelkeeduna jow yahay, halka Bill uu ahaa nin joog leh, muuq dhisan, kuna soocan dhoola cadeen soo jiidasho leh. inkastoo ay kala isir duwanaayeen oo isagu madow ahaa iyaduna cadaan, waxay markiiba isu qaadeen jacayl xad dhaaf ah, arrin xilligaa ahayd wax aan caado ahayn oo ay dadku la yaabaan. waxay isguursadeen dabayaaqadii lixdameeyada, khaasatan sanadii 1969 iyagoo soo degi doona magaalada Mississauga oo 29 kilomitir u jirta magaalada caanka ah ee Toronto, Canada. balse nasiib darro waxaa mushkilad ku noqotay lamaanahan in ay si dabiici ah u dhalaan caruur oo isku day badan kadib ay u suuragali weeday. saa darteed sanadii 1973 ayay korsiimo ama adoption wax loo yaqaano ku sameeyeen Caleb, wiil yar oo markaasi 6 bilood un jira. muddo yar un kadibna horaantii 1975 ayay magaaladan ka iibsadeen gurigooda nambarkiisu yahay 3635 Beach Pine Crescent oo 40 sano ee xigtaa ay ku wada qaadan doonaan, noqon doonana xudunta qoyskooda iyo barkulan ay isugu yimaadaan walaalahood, ilmaha ay abti iyo habaryar u yihiin, ilaa in adeero iyo asxaab badan. bulsho badan oo ku hareereysan ayaa halkan ugu yeeri doona gurigooda labaad. canugooda Caleb wuxuu ahaa kan ay juhdiga ugu badan geliyaan, inkastoo yaraantii uu waxbarashada ku dhibtoonaa, madax adeeg qalafsanna uu qabi jiray, taa oo mararka qaar xitaa keeni jirtay in Bridget iyo asaga ay isku dhacaan. haddana wuxuu ahaa mid ay jacayl xad dhaaf ah siiyaan, aadna ugu dhow, ilaa heer uu Bill Harrison ku tilmaamo in saaxiibka ugu dhow ee uu leeyahay uu yahay canugiisa. noloshoodu waxay ahayd mid aad u qurux badan, iskuna aadan, balse waxay mushkiladoo dhan u bilaaban doontaa dayrtii uu Caleb la kulmay, gabadha noqon doonta xaaskiisa mustaqbalka. dabayaaqada sanadii 2000, Caleb oo xilligan da ahaan 27 jir ah, misna ka shaqeeya qaybta shippingka ee store caan ahaa oo lagu magacaabo My Favorite Dolls, ayaa waxay indhihiisu qabteen gabar yar oo dhawaanahaasi kusoo biirtay shaqaalaha storekan, kana howlgashay miiska soo dhaweynta. Melissa Merritt, 19 jir, goordhow uun kasoo qalinjibisay iskuul sare. waxay ahayd gabar midab cas leh, dhoola cadeyn badan, welina ay ku jirto qalbi saafinimo. muddo aan dheereen kadibna waxay isu qaadeen jacayl. Caleb inkastoo uu ahaa mid aad u yara xishood badan, haddana wuxuu ahaa caqli badan, hadal mac, hablahan ay jecelaystaan agjoogiisa, barjilicsanna qalbigiisa ay uga banaan tahay gabdhaha qurxoon ee Melissa oo kale oo uunan iska reebi karin. mar haddii ay lamaano noqdeenna waxay ahaayeen ul iyo diirkeed oo aan kala saarmin. markasta si wada jir ah ayay shaqada u imaan jireen oo Caleb uu usoo kaxayn jiray Melissa. fasaxa iyo bareega qadadana way isla cunteyn jireen. habeen kastaana ay Melissa u samayn jirtay casho ay wada cunaan. waalida jacayl ee dhex taala labadan waxay gaaraysay ilaa heer xilli uu Caleb ku maqan yahay tacsida qof qaraabadiis ah ay Melissa u goysay shaqadii iyadoon fasax loo ogolaan, si ay saaxiibkeeda u garab joogto, reerkiisa iyo waalidiintiisana ay usoo barato. middaa oo nasiib daro keeni doonta in markii ay soo noqotay laga ceeriyo shaqadii. Caleb marka uu maqlay wixii ku dhacay qoftiisa, isna kama yareysanin oo xanaaq dartii ayuu kaga tegay shaqadii. Alloore waxay ku jireen jawigii ugu wacnaa ee lamaane isjecel, wax aysan isku hori karinna ma jirin. kadib dhowr bilood gudahoodna Caleb wuxuu waalidiintiisii la wadaagay in isaga iyo Melissa ay qorsheenayaan dhisidda qoys u gaar ah. waxaana laga yaabaa inaad is leedahay maxaa degdegan, balse degdegan badan waxaa ka keenayay in Melissa ay mid ka mid ah ovrigeeda, yacni ilmagaleenka qaybta uu gacanta ka samaysanto, ay ku weysay xaalad caafimaad darteed, kansarna ay isaga cabsi qabto, lagana yaabo in maalin uun midda kale laga saari doono. saa darteed waxay rabeen in ay caruur dhalaan inta ay awoodaan. dhanka kalena waxaa Caleb kusii riixayay arrinkan maadaama uu ahaa qof aan aqoon waalidkiisa saxda ah, su'aalo badan oo jawaabo uusan u hayninna maskaxda kaga jiray, misna uu rabo in uu dhalo ilmo isaga ka soo go'ay. 3 sano iyo bar uun kadibna waxay ahaayeen say iyo marwadiisa oo 2 caruur, gabar iyo wiil haysta. waxay guri ka iibsadeen meel 30 daqiiqo uun u jira gurigii hooyadiis iyo aabihiis ee Bill iyo Bridget. balse xiriirkiisii jacayl iyo guurkiisii kala dhexeeyay Melissa ee dhagaxa ahaa wuxuu muddo yar gudaheedii isugu bedelay mid rabshado iyo isjiijiid aanay ka dhammaan. bishii 6 ee 2005 ayaa Melissa waxay booliiska ku dacweysay Caleb iyadoo u sheegaysa in uu jirdil xun u geystay kadib markii uu qoorsagaaro la dhacay. isla markiiba inta Caleb la xiray ayaa lagu xukumay xadgudub reereed, wuxuuna muddo 3 maalmood ah ku qaatay jeelka. Melissa iyada ahaan waxay guurkan sii xumaanaya dusha u saaraysay khamri cabista badan ee Caleb iyo xanaaqiisa faraha badan, halka asagana uu eedda dhan u tuurayay Melissa iyo been bidnideeda oo ay u dheeraayeen wax uu ku tilmaamay sheekooyinka been abuurka ah ee ay reerka ku welweliso, sida in ay kansar qabto iyo wax la mid ah oo iyadu ay iska diidi doonto in ay u sheegtay. almuhim kadib 3 maalmood waxaa dib loo soo fasaxay Caleb oo shuruud looga dhigay in uusan u dhowaan wax khamri ah, balse isaga iyo Melissa ma jirin qaab ay isugu noqdaan.
waxay go'aansadeen in ay kala tagaan xiriirkiina wuu dhammaaday saa darteed wuxuu dib ugu noqday gurigii aabihii iyo hooyadiis ee Beach Point Crescent Melissa iyo caruurtiina waxay sidoodii usii degnaayeen gurigoodii ka dhexeeyay muddo hal bilood ah kadib kala tagoodii July 2005 Caleb ayaa waxaa lagu casuumay xaflad ay dhiganayeen rag asxaabtii ah waxay balantu ahayd in uusan u dhowaan wax khamri ah maadaama ay ahayd shuruudii lagu sii daayay sidoo kale caawa uu isagu dib u soo kaxeyn doono asxaabta kale ee khamriga miirkooda ku dabooli doona balse xilligan Caleb wuxuu aad u jeclaa khamri cabista mar walba oo galbihii ka soo rawaxayo shaqadiisana wuxuu horay lugta u soo marin jiray baar lagu caweeyo kahor inta uusan gurigii ku soo noqon sadarteed markii habeenkii uu sii daba dheeraaday xafladiina ay mareyso meel dhiinta ah Caleb inta uu is celin waayay ayuu isu ogolaaday in uu hal koob oo khamri ah qac ka siiyo waa hal kaliya wax dhib ah uma keeni doono sax balse halkii ayaa u sii dhiibay mid kale haddana mid kale iyo mid kale goortii la gaaray dhammaadkii xafladda ee la baxayayna wuxuuba afka kasii tirtiranayay koobkii 14aad ee habeenkan uu kusii sogootiyey inta uu gaarigiisii isku tuuray ayuu asxaabtii la socotayna ku yiri balna keena balse raggan oo u wada jeeda sida xun ee u sarqaansan yahay Caleb arkana in uusan qabin miir gaari lagu kaxeeyo ayaa diiday in ay soo raacaan gaarigii iyagoo ka doorbiday in ay iska sii lugeeyaan Caleb inta uu gaarigiisii furaha ku rugtay ayuu markiiba qabtay wadadii xilli uu laamigii weynaa haayo gaarigiisana uu ku socdo xawaare 100 km/h ah ayuu hal goor inta seedkii uu haayay ka leexday wuxuu si xun ugu dhacay gaari taxi ah oo ay saaran yihiin darawalkii iyo afar wiil oo dhalinyaro ah isku dhicii gaariga wuxuu markiiba nafta dhaafiyay darawalkii taxiga oo loogu magacaabay Michael Raymond Tom Filniski oo ahaa mid kamid ah wiilashii saarnaa qaybta dambe ayaa isna wuxuu ka jabay gacan iyo lug iyo sidoo kale laf dhabarta qaybta salka hoose wax yar uun ka koraysa sidoo kale wiil kale oo saaxiibkiis ah oo lagu magacaabo Tim Corbett oo asna la saarnaa qaybta dambe ayaa isna intuu ka soo faniinay kursigii dambe si xun uga kala jabay lafta madaxa qaybta dhafoorka ku aadan inta u dhaxaysa sunyaha ilaa iyo dhagaha oo noqon doonta sida laba qayb oo la kala jaray kuwa oo ay waxba isku haynin marka laga reebo maqaarkii labadii gaari ayaa markiiba holac dab isla horay wiilashii kale ee ka soo haray kuwii saarnaa taxiga oo dhaawac iyo fudfudud ay ku yaalaan inta ay gaarigii ka bixeen ay u sii carareen dhanka kale waxay ula muuqatay in saaxiibadood ay waa hor isdaayeen oo iyagu dhaqaaq la'aan dhex yaala gaariga burburay isla markiiba dad ka mid ah deegaanka oo qeylada shilkii ku soo baxay iyo Caleb saaxiibadii oo iyagu xilligaasi wadada dhinaca kale ka lugeynaya ayaa ku soo cararay meeshan lagu hoogay inta ay durbadiiba ku carareen gaarigii saaxiibkood ay dibadda uga soo saareen Caleb Harrison oo ay lug jaban tahay dhaawacyo kalena uu ku yaalo balse dhaawacyadiisu uma dhigmin kuwa uu masaakiintan kale u geystay wuxuu nafta dhaafiyay hal qof laba kalena dhigay koomo muddo gaaban gudahood goobtii waxaa soo gaaray booliiskii magaalada oo iyagu markiiba xiri doona Caleb Harrison ka oo ay ku soo oogi doonaan dambi dil iyo dhaawac uu ku geystay shil gaari isagoo sarqaansan balse maadaama isaga laftirkiisii uu dhaawacan yahay markaasi waxaa loo ogolaaday in uu bixiyo lacag madax furasho ah xabsina aan loo gudbin ilaa maxkamad ay dacwadiisa dhinac u xukunto balse xabsigii bedelkiisa waxaa loogu bedelay xabsi guri oo uu ku qaadanayo gurigii waalidiintiisa meelna uusan uga bixi karin Melissa oo xilligan iyadu ilmaheeda ka korsanaysa misna maqashay shilkii gaari ee uu geystay Caleb oo uu qof ku dilay ayaa bilowday in ay markiiba ilmaheeda ka fogeyso ninkan iyadoo cadeen uga dhigaysa shilkiisa in uusan ahayn aabe ku haboon ilmaha balse nasiib xumo sidii ay filanaysay ma u noqon oo waxay maxkamadii ku amartay in aysan u diidi karin ilmaheeda booqashada aabahood iyo in ay waqti la qaataan dhowr isbuucun kadibna inta uu dhaawacii soo gaaray la rafahsan yahay sariirna uu la saaran yahay Melissa oo argagax la jareynaysa ayaa booliiskii wacday una sheegtay in uu qof ku soo weeraray gurigeeda misna ay u cabsanayso ilmaheeda iyo nafteeda isla markiiba qoladii booliiska waxay soo raadiyeen Caleb Harrison oo ay ugu tagi doonaan sariirtii uu saarnaa maadaama uu ahaa qofkii ay ka shakiyeen balse xaaladiisa oo ay arkeen iyo xog dheeraad ah oo ay ka heli waayeen dhacdadan ay gabadhan sheeganayso waxay dhinac iska dhigeen cabashadeeda laakiin Melissa dhowr jeer oo kale ayay booliiska wargelin doontaa in gurigeedii loo soo dhacay Caleb isaga ahaan wuxuu arintan oo dhan ka aaminsanaa in ay tahay isku day joogto ah iyo xeelad ay Melissa adeegsanayso si ay u abuurto shaki asaga laga qabo iyo in uu yahay qof xadgudub geysta oo halis ah iyo wixii markaas ay damacsan tahay inta waxaan oo dhan ay dhacayaanna isaga iyo Melissa waxay internetka ka barteen misna ay xiriir la yeelan doonaan laba qof oo kale Caleb wuxuu xiriir hasaabo la yeeshay gabar lagu magacaabo Karinda McEwen oo iyadu si lamida isaga haysata laba caruurood aadna ay u soo dhaweyn doonaan reerkiisa qaasatan hooyadiisa Bridget oo xiriir balaaye ah la yeelan doonta gabadhan waxay markiiba ka dhigteen sida gabadhooda oo kale iyada iyo ilmaheedna ku soo dhaweeyeen reerkooda halka dhanka kale Melissa ay iyana xiriir la bilowday Christopher Fatore ka oo shaqadiisu ahayd ilaaliye ama security guard oo marmar uun shaqo hela sida aad ka arki kartaba sawirkiisa Chris wuxuu ahaa nin aad u jirdhisan lafweynina alle u dhaliyay isla markii uu bartay Melissana wuxuu dareen jacayl oo xad dhaaf ah u qaaday iyada iyo caruurteeda halka nacayb aan ka yareysanna uu u hayay Caleb Harrison muddo yar gudaheedna inkastoo Caleb
Caleb iyo Melissa aanay isfurin, Chris iyo Melissa waxay gurigoodii ku dhigteen xaflad yar oo guur ah. Inta ay keeg wada jarteen ayay fargalo isku xireen. Dhowr bilood kadib xafladiina waxa u dhalatay gabar oo noqon doonta canugooda ugu horeeya. maadaama xilligan ay Melissa reer kala dhisatayna waxa maxkamadii ay u kala xukuntay Caleb iyo iyada in ay konton u kala lahaadaan ilmihii oo waqtigoodu ay bar ku qaataan guriga Beachbine Crescent oo uu Caleb kula nool yahay waalidiintiisa, halka barka kalena ay hooyadooda iyo seegeeda cusub kula qaataan gurigii ay horay u lahaayeen. Bridget iyo Bill waxay markiiba dhexda u xirteen doorkoodii ayeeyo iyo awoobe, maadaama wiilkoodii aan loo ogoleen in uu gaari wado. waxay bilaabeen in ay ilmihii u kaxeeyaan iskuulka iyo goobaha lagu ciyaaro, damaashaad geeyaan oo ay ilmihii noloshooda qayb weyn ka noqdaan. waxaana nasiib darro midda aad u dhibsan doonta Melissa oo aan raali ka ahayn sida ay nolosha ilmaheeda ugu lug leeyihiin. ayada ahaan waxayba u aragtay in mas'uuliyadda uu dayacay wiilkooda ay daboolayaan. haddii Caleb uu ilmihiisa daryeeli karin, maba aha in ay u soo dhawaadaan qof kale oo aanan ayada ahayn, ayay Bill iyo Bridget ku tiri. ninkeeda cusub ee Chris asna wuxuu bilaabay in uu Caleb dacyad dhulka kula dhaco, boostiyo badan oo caay ahna uu Facebooka soo dhigo. mid ka mid ah boostiyadaasi inta uu soo dhigay sawirka Caleb oo geesa sheedaan loo sameeyay ayuu ku soo dul qoray, kani waa Caleb Harrison, doqonkii qof naftiisa ku dhaafiyay gaari uu waday isagoo sarqaansan. nasiib darro waa seegii hore ee xaaskayga, waa canug halis ah, mayac lagu soo koriyey, taajir cabtooy ah, kaa oo wax badan u dhimay nolosha caruurtiisa ee aan haddeer aniga korinayo. wuxuuna dadkii ka codsanayay in ay garab istaagaan dhaqaale ahaan, misna ay boostigan u sheergareeyaan qof kasta si loo wada arko dembiyadiisana loogu ogo oo ay maxkamadda sii daba dheeraatay u xukunto. muddadii 2 sano ahayd ee xigtayna Melissa ayaa dhowr jeer cabashooyin iyo dacwado ka gudbin doonta Caleb iyo waalidiintiisa oo ay ku sheegayso in ay jir dileen caruurtii, sidoo kalena ay ku dhibaan masruufkooda. balse baaritaano ay sameeyeen kadib waxaa garsoorkii sare u soo baxday in Melissa ay caruurtii ku tababartay sheegashada dhib aan loo geysanin haddii ay booliiska wax ka weydiiyaan. saadarteedna waxay qasab uga dhigeen in iyada iyo Caleb aysan wada kulmin, qaab fariin ah oo keliyana ay ku wada xiriiraan oo waraaqo ay isdhaafsadaan. balse sheekadu waxay sii xumaatay markii ay Melissa si toos ah isugu dhaceen Caleb hooyadiisa, kuna eedeysay in ay wax waraaqaha u soo qoro Caleb ay tahay hooyadii, misna ay u baahan tahay in ay isaga dhex baxdo wax aan shaqadeeda ahayn. iyadoo isjiijiidkii lagu jiro ayaa ugu dambeyn la gaaray xilligii maxkamadda ee Caleb iyo dacwadda shilkii uu ku dilay darwalkii taksi ee Michael Raymond. waxaana daraamada dhex maraysay labadan reer ay foolxumadeeda banaanka soo baxday intii ay socotay maxkamadeynta Caleb. Melissa iyo seegeeda Chris inta ay fariistaan qaybta dambe ee qolka dacwo dhageysiga ayay sheeko hoosaad iyo dhoola cadeen ku duri jireen reer Harrison. mararka qaarna wajiyo jees ah ayay ku sameyn jireen reerka marka ay soo eegaan. intaasoo keliya kuma ekaanine, inta ay kaga sii horumaraan qaybtii baarkinada ayay dhowr mar ku hor jareen gaarigii reerkan ay wateen, caay iyo wixii afka qaban karayna laysugu miisay. ugu dambeyn sidii ay rabeen March 9 2009 Caleb waxaa lagu oogay dacwadii uu ku eedeysnaa isagoo lagu xukumay xabsi 18 bilood ah. Melissa iyo Chris waxay u riyaaqeen xabsigii la dhigay Caleb. ugu dambeyn sidii ay rabeen kuna haweenayeen ilmaheeda qof aan iyada ahayn waqti lama qaadan doonaan maadaama aabihii xabsi la dhigay, balse dharbaaxi xun ayaa dhafoorkooda ku dhici doonta. Bridget iyo Bill Harrison ayaa markii canugooda Caleb xabsi loo taxaabay waxay codsi u gudbiyeen maxkamadii ahliga ahayd ee gacanta ku haysay kiiska caruurtii wiilkooda iyo Melissa ay iska dhaleen, iyagoo weydiisan doona in xuquuqdii Caleb ayaga lagu soo wareejiyo maadaama xabsi la dhigay, daryeelka caruurtiisa qaybta uu ku lahaana ay iyagu mas'uuliyaddeeda qaadaan. 2 isbuuc kadibna waxaa ogolaansho loo siiyey in ay buuxiyaan booskii uu ka baxay Caleb oo aabihiisii lagu wareejiyey, balse middan ayaa cawaaqib xumo ay ka dhalan doontaa. muddo bil ah marka ay ka soo wareegatay maalnimadii 6 Abriil 2009 waa tii Bridget oo habeenkaasi ka soo laabatay shirkii iskuulka ugu dhex timid gurigii meydka ninkeeda Bill oo dhex tuuran suuliga, xitaa iyadoo ay jirtay dhaawacyo yaryar oo jirkiisa ku yaalay kuwa oo shaki badan dhalin karay. waa tii jawaabtii baaritaanka lagu soo koobay in geeridiisa ay ahayd mid dabiici ah. hal maalin kadib geeridii Bill, haddana nasiib xumo hor leh ayaa reer Harrison ku habsan doonta oo ilmihii Caleb ayaa gabi ahaanba la waayay. waana tan midda shakiga ugu weyn ku dhalin doonta Bridget Harrison. isla maalinkii la dilay ninkeeda Bill, Chris iyo Melissa inta ay si sir ah isku wada dhufsadeen alaabtii gurigooda, ilmihii yaraana ay kalar u mariyeen timaha, ayay gabi ahaanba ka dhunteen magaalada iyagoo meel ay jaan iyo cirib dhigeen la waayi doono. waxaana gadaal laga ogaan doonaa in dhowr maalin ka hor ay ilmihii Caleb u sheegeen macallimiintooda in loo kaxeyn doono goob dalxiis ah, se meesha ay aadeen ma ahayn dalxiis ee waxay gebi ahaanba Chris iyo Melissa nolol cusub ku bilowdeen deegaan yar oo lagu magacaabo Londonderry ee gobolka Nova Scotia, kaa oo ku taal jasiirad yar oo xuduudda shishe ee Canada saaran, deegaan dadka ku nool ay wax yar kor u dhaafayaan keliya 200 oo qofood. Bridget ayaa waxay markiiba booliiska ku wargelisay in ay ilmo ka maqan yihiin, balse maadaama warqadii xuquuqda ay maxkamadda soo saartay
uu ku qornaa Caleb aabihiisa Bill isna uu dhintay waxay u sheegeen in aysan talaabo ka qaadi karin ilaa ay maxkamadda qoyska Bridget soo siiso xuquuqdii ilmaha waxaana nasiib wanaag dhowr maalin uun kadib 23 Abriil ay gacanta ku dhigtay warqadii maxkamadda taasoo keentay in booliiska ay soo saaraan amar lagu soo xiraayo Melissa Bridget oo la hadlaysa dambi baarihii kiiska caruurta maqan la wareegay oo lagu magacaabay Michael Young waxay u kala dhigdhigtay taariikhda reerkeeda iyo sida ay arintu marayso in wiilkeeda xabsi la dhigay aabihiisna uu la wareegay xuquuqda ilmihiisa taa oo ay aad uga carootay Melissa iyo in si kadis ah oo aan marna la filanayn in ninkeeda uu u geeriyooday maalinkii xigayna ay caruurtii iyo Melissa isla weeday balse iyada ahaan waxa mid lagu farxo u ahayd in wiilkeeda Caleb laga soo daayay xabsiga isaga oo aan dhameysan muddadii lagu xukumay dhanka kale inta ay magaaladii Mississauga waxaan oo dhan ka dhacayaan Melissa iyo Chris waxa u dhashay canugoodii labaad oo noqon doona kii afraad ee Melissa xilli wax waliba ay isugu daba dhacayaan sidii ay u qorsheeyeen ayaa nasiib daro wuxuu Chris geli doonaa qaladkii ugu weynaa isagoo isku haysta in uu isticmaalayo magacii cusbaa ee uu ku dhuumaaleysanayay ayuu si kadis ah wuxuu warqadii ijaarka uu ku bixin jiray ugu qoray magaciisii saxda ahaa ee Christopher oo ay booliisku isha ku hayeen kuna raad joogeen waxaana 27kii bishii November gacanta lagu soo dhigay Melissa oo lagu eedeyn doono afduubka ilmaheeda midan kama dhignin oo kaliya in ay gabi ahaanba waayi doonto ilmaha ay rafaadkan oo dhan u martay ee waxay sidoo kale maxkamad isaga hor imaan doonaan ayeeyadooda Bridget oo xuquuqda dhan la wareegi doonta haddii lagaga guuleysto sida la sheegay Bridget ayaa qorshaheedu ahaa in ay maxkamadda ka dhex sheegto sida shakiga weyn ay uga qabto geerida ninkeeda iyo la baxsiga caruurteeda in ay isku soo beegmaan dadka qaar waxay aaminsan yihiin in si kadis ah ay isugu beegmaan dhacdooyinka dadka kalena maya ayay ku tiri warqadii ay u diyaarsatay kala fadhigii maxkamadda balse inta laga sii gaarayo maxkamadda waxa amar lagu siiyay Melissa in ay gabi ahaanba u dhawaan caruurtii ama gurigii reer Harrison ee lagu haayay amarkaas oo nasiib darro ay jabin doonto Abriil 10keeda 2010 kadib markii ayada iyo Chris ay si toos ah u tageen gurigii reerkan sida ay ku warbixiyeen reer Harrison Chris ayaa inta uu gurigii soo gargaraacay Bridget gacanta ka saaray warqado halka Melissa aysan gaarigii ka soo deganin oo ay ku dhuumaaleysaneysay midan oo cabsi iyo argagax badan ku abuurtay Bridget ayaa keentay in ay wacdo booliiskii oo xiri doona Melissa muddo 3 maalmood ahna xabsi ku qaadan doonta amar jabintii ay sameysay almuhim ugu dambeyn 21kii Abriil 2010 hal maalin uun ka hor maalinkii lagu balansanaa maxkamadda mar la sii maraayo xilli galabkii ayaa wiilkii uu dhalay Caleb oo dib uga soo noqday iskuulkii yimid gurigii ayeeyadiis ee Beachpine Crescent isla markii uu soo furay albaabkii wuxuu ugu kor yimid ayeeyadiis Bridget oo ku nafbaxday inta u dhaxaysa albaabka guriga iyo jaranjarta qaybteeda hoose wuxuu kolkiiba u cararay reerkii dariskooda ahaa oo iyagu mar labaad sanad gudihii booliiska wargelin doona dhacdo fool xun oo gurigan ka dhacday waxa muddo gaaban gudahood soo gaaray qoladii booliiska oo dhammaan baaxadda guriga ku wareejiyay bacihii baarista waxayna gurigii ugu dhex tageen Bridget oo dhabarka u jiifta wajigeedana uu u jeedo dhanka sagxadda ee guriga halka madaxeeda uu saaran yahay lugsaarka ugu dambeeya ee jaranjarta ay leedahay indhaheeda iyo afkeeda aad ay u kala furnaayeen midabka jirkeeduna isbedelay dhowr talaabana u jirta meesha ay muddo yar ka hor ugu tagtay ninkeeda oo kala tuuran waxay dhaawaca nabaro jug ka dhashay ka muuqdeen garkeeda iyo qaybta hoose ee dhegteeda ilaa iyo qoorteeda waxay u labisneyd si dhammaystiran okiyaalihii iyo boorsadii ay sidatayna ku kala faniineen dhinacyadeeda oo waxay qaab ahaan u muuqatay qof rabaa in uu ka baxo guriga qoladii baarista waxay kaloo diiwaan geliyeen in Bridget ay ka jabneed luqunta iyo dhowr feer oo ka mid ah lafaha xabadkeeda sidoo kale waxay heleen caddeemo u muujinaya in qoorteeda ay wajahday wax u muuqda ceeji keeni karana in sidaas ay ku nafbaxday waxaana geerideedii lagu calaamadeeyey in ay tahay mid uu tuhun ka jiro laga bilaabo maalinkii ay dhimatay Bridget waxaa reerkeeda walaac badan ay ka qabeen Melissa iyo Chris oo ay farta ku fiiqaayeen booliiskii baaritaanka waday oo wareystay Caleb ayaa si qayaxan ugu sheegi doona in ay si qoto dheer u eegaan Melissa iyo Chris ma jiro qof inta uu ka soo dhaco jaranjar qaabkaasi isagoo u yaala loo imaanayo waxaan weydiin lahaa Melissa iyo Chris meesha ay ku sugnaayeen galabkaasi ayuu ku celceliyey balse mid uusan Caleb ka warhayn ayaa ahayd in wareysigan ay booliiska ku sameynayaan uusan ahayn sida uu u maleynayo iyo qaabka uu moodayo ee taa cagsigeed wuxuu isagu laftirkiis ahaa mid ka mid ah dadka ay uga shakisan yihiin dilka hooyadiisa oo la ogaa in uu xiriir adag kala dhexeeyay tan iyo yaraantii balse ugu dambeyn marka ay waayeen wax Caleb ku cadeynaya in uu ku lug leeyahay dilkan misna ay xaqiijiyeen in xilliga uu ku sugnaa goobtii shaqadiisa waxay u jeesteen Melissa iyo reerkeeda oo wareysigii ay ka qaadeen ugu sheegi doonta in ay ku sugneed gurigeeda oo ay caruurteeda ku haysay balse waxaa mid la yaaba ahayd in booliiska ay farta ugu fiiqday Caleb in hooyadiis xurguf ay kala dhaxayso oo ay isagu isha ku haayaan when I don't know anything that would have happened to her. I know I got, my worries about things, but what would those worries be? Well, not so much worries, just when I was with Caleb,
already been told by Detective Amoroso that fingers are being pointed, and I'm not in any way pointing fingers because that's not why I'm here. But when I was with Caleb, he didn't have a good relationship with his mom. I'm not saying that's enough to do something to her, but he didn't have a great relationship with his mom. They had, they would argue a lot. I know that they had a rough, growing up stage where they wouldn't get along. sababta ay sidaasi u samaysayna lama ogeen lamana qiyaasi karin balse sidaad ila arki doontaba si fiican ayaad u fahmi doontaa marka aan wada aragno xaqiiqda dhabta ah iyo sidii ay wax u dhaceen almuhim sidoo kale waxay booliisku wareysteen seegeeda Chris oo u sheegay in isagu uu joogay gurigiisa howlna ka hayay waxaana markii dambe hadalkiisa xaqiijin doona muuqaaladii CCTV-ga ee ay booliisku gacanta ku dhigeen oo muujinayay in uu ku sugnaa meesha uu sheegtay balse waxaa jirtay hal arin oo aad u muhiim ah taa oo ay booliiska iska indhatireen Chris wuxuu sheegay in muddo yar oo uu guriga ka maqnaa jiray guriga hooyadii Melissa dhashay taa oo aysan booliiska dabagal ku sameeynin misna aysan xaqiijin in runtiisa ay ahayd iyo in kale laba isbuucun kadibna markii dambi baariyaashii ugu waaweynaa ee kiiskan waday lagu casuumay shirweynaha G20 Summit-ka ee sanadaasi lagu qabanayay dalka Canada waxaa qaanad la isaga xiray guud ahaan baaritaankii kiiskan bilooyin kadibna lagu soo koobay in dhimashada Bridget aan loo haynin caddeyn muujinaysa in la dilay misna ay kiiskan iska xiri doonaan midan ayaa si xun u saameysay qaraabadii reer Harrison qaas ahaan Caleb geerida hooyadii ayaa gabi ahaanba kala dhantaashay noloshii uu haystay waxaana ku dhashay niyad jab iyo depression aad u xun isagoo ay kala tageen gabadhii dambe ee uu la socday ee Corinda dibna uu u bilaabay isticmaalkii qamriga marka laga reebo caruurtiisa ma jirin wax kale oo uu noloshan ku haysto misna uu ka walwalo kadib dhimashada hooyadiina waxaa lagu soo wareejiyay gabi ahaanba xuquuqdooda halka Melissa loo ogolaaday in kaliya ay la kulunto caruurta iyadoo lagu kormeerayo dhanka kale Melissa iyo Chris waxay ka guureen magaaladii Mississauga iyagoo guri yar ka ijaartay magaalada yar ee Bertha oo bari ka jirta magaalo weynta Ontario halkaas oo ay ka bilaaban doonaan beerasho iyo xoolo dhaqasho iska kooban sidoo kale waxay lacag yar ka sameyn jireen xirfado ay Melissa qaban jirtay kuwa oo ay ku sameynayso macmacaan yar yar iyo shumacyada lagu carfiyo guryaha iyo waxyaabaha la midka ah balse waxay marmar u dhaqmi jireen qaab la yaab leh muddadiiba mar inta ay booqdaan internetka ayay ka raadin jireen magacyada Bill iyo Bridget Harrison iyo sidoo kale su'aalaha sida sidee ku ogaan kartaa haddii telefoonkaaga lala socdo kuwa oo aan isla arki doono sababta ay sidaasi u sameynayeen tuhun kasta oo Caleb uu ka qabo Melissa iyo seegeeda haddana wuxuu u ogolaaday in ay ilmihii waqti la qaataan inkastoo maxkamaddu xor u siisay in isaga ay ku koobnaadaan ilmihiisa haddana wuxuu u ogolaan jiray in maalmaha qaar ay waqti ku soo qaataan guriga hooyadood halka maalmaha soo harayna ay asaga la joogi jireen xilligan Caleb waxay dib isugu noqdeen saaxiibadiisii Corinda wuxuuna shaqo sare ka helay dukaanka caanka ah ee lagu magacaabo CMC Electronics inkastoo niyajabkii uu weli ku dambeeyana haddana wuxuu ku dadaalayay in uu noqdo aaba fiican isagoo xitaa bilaabay in xilliyada firaaqada uu yahay uu tababare u noqdo kooxda ay ilmihiisa u ciyaaraan ee iskuulkooda ka dhisan si la mid ah sidii uu aabihiisii Bill u sameyn jiray isaga marka uu yaraa balse jawiga degan ee ay ku jiraan si degdeg ah ayuu isugu bedeli doonaa kii ugu xumaa abid horaantii bishii Maarso 2012 Melissa oo uur 5 bilood ku wada canugeeda lixaad ayaa hal goor subax ka mid ah subaxyada ku waabariisatay holac ka dhashay gubashada gurigii yaraa ee ay degnaayeen isla markiiba inta ay ilmihii kala soo carartay guriga ay bilaarajo ku daabatay dhammaan alaabtii gurigeeda iyo wax waliba oo ay haysteen oo dhuxul uu ka dhigayo dabkii weynaa ee ka kacay waxay mar kale ku soo dhaceen banaanka wax ay haystaan iyada iyo Chrisna ma jirin saadarteed inta ay dib ugu soo laabteen magaaladii Mississauga ayay bilaabeen raadinta qaab kale oo ay dib ugu soo dhisi karaan noloshooda isla xilligan ay magaalada ku soo laabteen ayuu wuxuuba Caleb go'aansaday in uusan rabin in Melissa ay u wadato caruurtii qaabkii hore ee xurta ahayd misna ku qasbay haddii ilmaha aragooda ay doonayso in ay ku soo booqato gurigooda oo aysan ka kixin karin muddo dhowr bilood ah kadib maalinka ay taariikhdu maraysay 22 Agoosto 2013 Caleb ayaa ilmihiisa u kaxeeyay ciyaarta baseball game oo ay ka qayb galayeen kadib ciyaartii markii ay soo dhamaatayna wuxuu geeyay gurigii Melissa oo maalinkan balanku ahaa in uu noqdo maalinkii ugu dambeeyay ee ay Melissa gurigeeda kula qaadan doonto ilmaha ka hor intaanan caruurta loo keenin Melissa iyo Chris waxay aadeen supermarketka weyn ee Walmart halkaas oo uu Chris ka soo iibsan doono kabo sneakers ah oo cusub waqti dambe mar loo sii dhow yahay saqbarkii habeenimo Caleb inta uu wacay lamaantiisii Corinda ayuu waqti yar oo xasaawo ah la qaatay sida ay sheegtay wuxuu u muuqday qof yar sarxaansan wuxuuna isku diyaarinayay in uu film daawado markii ay telefoonka ka baxday sida caadadu u ahayd habeen kasta inta uu damiyay telefoonkii ayuu iska hoyday maalinkii xigay mar la sii maraayo xilli duhuradii ah qaar ka mid ah saaxiibadii Caleb oo ka walwal qaba sababta uusan u imaan shaqadii subaxan ogaana in xalay uu qamri cabay ayaa albaabka gurigii soo gargaraacay waxa isla markiiba ka furtay gabadhii nadaafadda ee guriga u hagaajin jirtay Caleb oo iyada xilli barqadii ah timid guriga sida caadada ahaydna horay u gashay
hawsheeda balse marka ay weydiiyeen Caleb waxay ku tiri ma arag iyadoo u raacisay in qolkiisa uu ka xirnaa dhexda oo ay furi weyday isla markiiba raggii inta ay aadeen qolkii Caleb oo qaybta sare ee guriga ku yaalay ayay albaabkii kala jibiyeen waxayna meeshii ugu dhex tageen meydkii Caleb Harrison oo sariirtiisii jiifka ku kala tuuran go'na dul saaran yahay durbadiiba waxa dhacdadan la wargeliyay qoladii booliiska iyo qoladii gargaarka oo iyagoo ama kaag afka kala haya soo gaaray guriga qof kastaan uu isweydiinayo hore ayaan halkan u nimid haddana mar kale sidoo kale wuxuu kala warkii gaaray qaraabadii reerkan oo naxdin ay beerka kala goysay shalay unbay wiilkooda Bill Harrison halkan ka soo saareen isagoo bac ku jira iyadoon waxba ka soo wareegan waa tii gabadhooda Bridget ay indhuxumo ugu kor imaadeen meedkeeda haddana Caleb kii ugu dambeeyay reerka sidee ay ku dhici kartaa saddex qofood hal reer isla gurigii in loogu yimaado meedadkooda misna aan la garanaynin wax ku dhacay nasiib wanaagse si ka duwan Bill Harrison iyo Bridget wiilkoodii Caleb waxa markiiba la go'aamiyay in dilkiisa uu ka dambeeyo qof misna lagu dilay ceeji waxayna geeridiisii noqotay bom ka dhex qarxay xafiiskii baarista oo hal mar qaanadaha ka wada furay kiisaskii kale ee aabihii iyo hooyadii hal goor sheekadu waxay ka balaaratay baaritaanka hal dil waxayna isku bedeshay baarista 3 kiisood oo dil ah cid looga sheekisan yahayna waxay noqotay Melissa iyo saygeeda Chris oo ay durbadiiba booliiska bilaabeen la socoshada dhaqdhaqaaq walba oo ay sameeyaan qoladii booliiska inta ay ku jireen baarista meydkii Caleb waxay qaybta hoose ee cidyaha gacantiisa ka heleen DNA-gii Chris Fatore oo noqotay cadeyntii ugu horeysay ee lagu hayay dadkan balse taa waxaa kasii muhiimsaneed maalmo kadib askari booliis ah oo iska dhigaya qashin ururiye si qarsoodi ahna loo daba dhigay Melissa iyo Chris ayaa wuxuu gacanta ku dhigay baco qashin ah oo ay iska soo tuureen reerkii Melissa bacahaasi ayaa laga dhaxelay kabihii cusbaa ee uu Chris ka soo iibsaday supermarketka weyn ee Walmart oo naqshada saantooda ay booliiska ku dhex arki doonaan qolkii Caleb iyo 2 golofis oo leh DNA-ga Caleb Harrison laakiin inta ay dambi baarayaashu isku keenayaan cadeymihii kiiska dhacdo kastaana ku xirayaan midda kale Melissa iyo Chris waxay mar kale ka guureen Mississauga iyagoo u cararay magaalo kale oo ku taal bariga Canada si nasiib daradooda intii ay xirxirayeen alaabtoodii geediga waxay galeen qaladkii ugu weynaa ee abid iyagoo gurigooda uga tagay laptopkii ay wada isticmaali jireen ka oo markii uu gacanta u soo galay booliiska ugu dhex tagay taariikhda xog baaris ay Chris iyo Melissa ka sameynayeen internetka oo ahayd sidan 2 bilood ka hor inta uusan dhicin dilkii Bridget Harrison waxa internetka laptopkooda laga raadiyay ka waran haddii awoobe ama ayeeyo ay haysato sharciga mas'uuliyad ee caruurtaada misna ay dhintaan yaa la haddana 3 isbuuc ka hor dhimashadeeda waxaa la raadiyay imise ay qaadanaysaa in qof lagu dilo ceeji taa waxaa ka sii darnaa bil ka hor dilkii Caleb Harrison oo ahaa kii ugu dambeeyay waxay internetka ka raadiyeen hababka ugu fudud ee qof lagu dili karo misna aan laga shakinayn oo looga baxsan karo kalkan sheekadu ma ahayn tuhun waxna ugu dambeyn markii ugu horeysay baariyaashii u cadaaday xiriirkii qaraaraa iyo naceybkii ay Melissa iyo ninkeeda u qabeen reer Harrison bishii Janaayo 2014 booliiskii gobolka Nova Scotia ayaa u hub qaatay gurigii Melissa iyo Chris ay degnaayeen oo iyagu ugu dambeyn ku baraarugay in dambiyadoodii qarsoona ay daaha ka qaadmeen waxaana la soo dhigay xabsiga magaaladii ay dhibkan ku geysteen ee Mississauga markii la bilaabay wareysigii dambi baarista dhammaan cadeymihii la hayayna la soo hordhigay Chris oo isku dayaya in hal mar uu badbaadiyo Melissa ayaa booliiskii ku yiri waxaan hadeer ku sheegayaa in Melissa aysan waxba ka ogeyn waxa dhacay ilaa aan ka soo farxashay that Melissa Merritt did not know anything until after it was done. marka la weydiiyay waxa uu sameeyay inta uu neef dheer qaatay ayuu si buuxda u yiri aniga ayaa dilay Bridget iyo Caleb Harrison isagoo markiiba bilaabay faahfaahin dheer in uu ka bixiyo sidii ay u dhaceen iyo sababtii uu u sameeyay falkan foosho xun. What did you do? I killed Bridget Harrison and Caleb Harrison. habeenkii ugu dambeeyay ee uu dilay Caleb inta uu xili saq dhexe ah yimid gurigii reer Harrison ayuu ku soo furay isagoo isticmaalaya furo wiilkii weynaa ee Caleb iyo Melissa ay dhaleen ka soo xaday aabihiisa oo ay iyagu u dirsadeen maalin ka hor wuxuu qolkii jiifka ugu dhex yimid Caleb Harrison oo xiligaasi isku diyaariyay hurdo indhahana isku haaya isla markiiba inta uu feeraha kaga dhuftay shay uu watay ayuu ku booday Caleb oo uu cunaha ku dhagay isjiijid iyo rafaad dheer kadibna wuxuu si naxariis dara ah u haayay Caleb ilaa ay nafta ka baxdo Chris inkastoo uu isku dayay badbaadinta Melissa misna uu u sheegay in aysan ogeyn dilkii reerkan oo isagu kaligiisii uu sameeyay falkan foosho xun waxay booliiska u maleegeen dhagar uusan filanaynin kadib markii ay soo dhameeyeen wareysigiisa waxay qol gooni ah wada geliyeen isaga iyo Melissa uguna dhex qariyeen codduube ay ku dhageysanayaan sheekadooda balse dhuglaawayaashan iyagoo u maleynaya in cidna aysan ka agdhaweyn qof maqlaayana uusan jirin ay Melissa tiri maxaad u sheegtay taa oo Chris uu ugu jawaabay waxaan dusha saartay dambiga oo dhan si muddo yar lagugu
xukumo waxaan u sheegay in aan kula wadaagay uun marka aan fuliyey dilka maxaa sidaas u samaysay ayay Melissa ugu hadal naqday taa oo ugu jawaabi doono Chris sababtoo ah waxaan rabaa inaad caruurteena u noqoto almuhim ugu dambeyn 4 sano kadib bishii January 2018 Chris iyo Melissa waxaa lagu oogay dilka Caleb Harrison oo ay u soo baxday in ay si wada jir ah u lahaayeen halka Chris loo sii raaciyay dilka Bridget Harrison oo isaga keligii lagu cadeyn karay markaasi nasiib daro kiiskii aabaha reerkan ee Bill Harrison cadeyn buuxda la'aanteed waxa suuragal noqon weysay in labadooda loo ciqaabo waxaana guud ahaan lagu xukumay xabsi daa'in aan muddo 25 sano ah loo ogoleen wax cafis ah iyo madax furasho kiiskan ayaa waxay fadeexadii ugu weynaa ka raacday booliiskii magaalada Mississauga oo iyagu ay cadeed in ay ka juhdi dhigeen baaritaankii kiisaska ciidan iyo cabashooyinkii reerkan ay soo jeedinayeen waxyaabo badan oo loo sheegayna iska indhatirayay tan iyo dhimashadii ugu horeysay ee ku timid aabahooda sidee ayay arinta ahaan lahayd haddii marka ugu horeysayba ay dhegeysan lahaayeen shakigii ay qabtay Bridget Harrison misna baaritaan dhab ah samayn lahaayeen ka waran haddii ay si gaar ah u xaqiijin lahaayeen Chris in uu jiray gurigii uu sheegay in uu aaday ee ahaa gurigii hooyada Melissa taa oo sida marka dambe cadaatay been ahayd bedelkeedna uu ku maqnaa dilka Bridget Harrison xasuuqa nacaybka dhaliyay ee ka dhacay gurigan iyo ciribjarkii reerkan waxaa qayb weyn ka ahayd habacsanaanta booliiska magaaladan iyo guud ahaan dalka Canada iyo qaab baaristoodii oo kala dhineed cadaawada iyo argoosigu waa dab mid ka shitaa iyo kii loo shitaba labadooduba guba